weligaa ma maqashay mahmaahda caanka ah ee tiraahda haddii lagu keeno maroodi oo lagu yiraahdo cun halkeebaad ka bilaabi lahayd ama sideebaad u cuni lahayd dabcan maroodigu waa wax aad u weyn laakiin haddaad ku khasban tahay inaad cunto waxay noqonaysaa marka koobaad inaad hilibkiisa soo jarjarato kadib marka aad soo diyaarsato maroodigii weynaa cunidiisu waxay ka bilaabmaysaa qaniyo aad qaniinto ayaad marka koobaad aad ka bilaabaysaa sidaas oo kale hawl weyn haddii ay ku taalo lambar 1 waxa laga maarmaana inaad talaabada ugu horeyso aad qaado sida ogaad cashirkeen maanta qoraagu wuxuu u bixiyay plan every day in advance maalin walba ka hor inta aanad soo kicin qorshahaagu ha ku sii diyaarsanaado nimcooyinka waaweyn ee ilaahay maskaxdeena ku manaystay waxa kamid ah in ay maskaxdeenu sii sawiran karto shayga mustaqbalka dhici doona ka hor inta aanu dhicin ama shayga aad qaban doonto qaabkii aad u qaban lahayd iyadoo la gaadhinba ka hor sida awgeed waxa la yiraahdaa daraasadaha la sameeyay waxay sheegayaan 1 daqiiqo haddii aad ku qaadato inaad qorsheyn aad samayso waxay ku badbaadin doontaa hadhow toole 10 daqiiqo oo waqtigaaga haddii si kala aanu yiraahdo haddii hawl aad iska bilowdo qorshe la'aan shay 1 daqiiqo ka qaadan lahaa ama hawl 1 daqiiqo ka qaadan lahayd ayaa waxay ka qaadan doontaa 10 daqiiqo maanta markaa waxaan doonayaa inaan idin baro anigoo buuggeena nakaashanaya cashirkii labaad arrin aad iyo aad u muhiim taasoo ah qaabka aad noloshaada aad qorshe ugu samaysan lahayd haddii ilaa imika noloshaadu ay bilaa qorshe tahay waxaan kugula talinayaa inaad samayso 4 qodob ee soo socda qodobka koobaad waa inaad leedahay waxa loo yaqaano master list ama af Soomaali ahaan haddaynu macnayno waa inaad leedahay qorshe guud waxa laga wadaa qorshaha guud waa warqad ama waraaqo ay ku qoran yihiin wax walba oo aad jeceshahay inaad noloshaada xaqiijiso kulli qof walba maskaxdiisa yoolalba ka dhex guuxaya ahdaaf waaweyn buu leeyahay qof waliba waxaas muhiim ah xilliga xaqiijin doonto laakiinse inaad warqad soo qaadato aad fadhiisato kadibna aad ku qorto wax walba oo jecel lahayd meel walba oo jecel lahayd inaad gaadho ama wax walba oo jecel lahayd inaad xaqiijiso ayaad soo list gareynaysaa listiga marka waxa loo yaqaan master plan ama qorshaha guud baa la yiraahdaa hadday dhacdo maalimaha kamid ah inay maskaxdaada ku soo dhacdo shay cusub oo aad istiraahdo shayga xaqiiji ama wallahi mustaqbalka inaan halka gaaraan jeclaan lahaa waxaad soo kala furaysaa master plan-kaagii kadibna xagga dambe ayaad kaga daba daraysaa marka master list ama master plan waa qaybta koobaad ee loo yaqaano qorshaha guud inta marka laga yimaado waa inaad leedahay waxaan leeyahay 4 qorshe waa inaad leedahay qorshaha labaad waxa weeyaan waa inaad leedahay monthly plan qorshe bileed ama bil walba waa inaad leedahay qorshe ku dejisan ka hadaba uu fududiyahay halkeed ka keenaysaa listigii waxaad soo qaadanaysaa master listigii ama qorshihii guud kadibna waxaad isweydiinaysaa ka fikiraysaa bishan qorshihaygi guud ee aan lahaa maxaan ka xaqiijin karaa adigoo dabcan awoodaada waqtigaaga dhaqaalahaaga waxaas oo dhan ku xisaabtamaya kadibna bishaas ayaad soo gelinaysaa mid laba kaad xaqiijin karto xataa mid barkii Allah ka dhigo hadduu bishu ay ka badan tahay waa caadi weeyaan qodobka saddexaad ama qorshaha saddexaad waxa weeyaan waa inaad leedahay weekly plan qorshe toddobaadle ah kaana uu fududiyo isagu sida loo sameeyo halkeed ka keenaysaa waxaad ka keenaysaa qorshahaagii billihii ayaa waxaad u qaybinaysaa 4 week ama 4 toddobaad marka waxaad leedahay bishan waxa ay qorshaysnaa waxaas oo monthly plan-kaagii ayaad soo qaadaysaa kadibna shaygii ku qorshaysnaa ayaad u kala qaybinaysaa 4 week marka week walba markuu bilaabmayo maxaad isweydiinaysaa maxaan qabtaa weekan adigoo ka soo dheeganaya qorshahaagii billaha ah kaana waxaa la weekly plan waxa jiray muuqaal aan ka diyaariyay hore qaabka loo samaysto qorshaha toddobaadlaha aad baan idin kula talinayaa inaad soo daawataan welibana isagoo oo qoran oo template oo diyaarsan in muuqaalka ku sheegay waa channelkeena ayaad ka heli karaysaa qorshaha qaybta ugu dambaysa waxa weeyaan waa qorshaha loo yaqaan daily plan inaad maalin walba aad leedahay qorshe kaasi marka xagee isagna aad ka keenaysaa isagna aad buu fudud yahay qorshahaagii toddobaadlaha ahaa ee ku qorshaysnaa toddobadan cisho waxaad qabanaysay unbaad isweydiinaysaa habeenkii ka hor intaanad seexanin berri maxaan qaban karaa ama maxaan xaqiijin karaa marka berrito waad garanaysaa qof walba waqtigaagii iyo wixii aad qaban lahayd iyo inta ku banaan kadibna saasaad u soo diyaarinaysaa
marka qoraagu wuxuu ku talinayaa in noloshaadu haddii ay bilaa qorshe tahay weligaa tallaabo hore u socon maysa. dad badan iyo dhalinyaro badan waxay isweydiiyaan waan jecelahay inaan qorshe yeesho laakiin sideen u sameeyaa? aad bay u fududahay. keliya waxa ka xiga qalin iyo warqad ama kombiyuutarka ama moobilkaaga soo qaadato afarta qorshe ama afarta listina aad samaysato kadibna aad hore u socoto. marka ugu dambeyntii waxaan kusoo jeedinayaa habeen walba inta aanad seexanin ka hor ha kuu sii diyaarsanaado qorshahaagii maalinka beritoole aad qaban lahayd. waana ciwaanka cashirkeena maanta ee ah inuu maalin walba kuu diyaarsan yahay qorshahaagii subax aad qaban lahayd. berri markaad soo kacdo waad garanaysaa waxaad qabanaysid. laakiin haddii aad soo toosto adigoona waxba kuu diyaarsanayn oo isla maanta hurdadii baa kaa dhamaatay iska soo kac, waxaa kuu dhaanta labada inaad iska sii hurdo ayaa kuu khaldan. aad baad u mahadsantihiin. muuqaalkeeni maanta halkaas uu inoogu joogaa. insha allah muuqaalka xiga berri ayaynu iskugu iman doonaa.